markale iyo isku soo noqod wanaagsan su'aasheena maanta waa kuma aktarkan haddii aad garanaysid aktarkan magaciisa rasmiga ah nagu wada qaybta hoose ee faallada waxa ku bilaabanayaa filimkeena maanta waxaan aragnaa nin wata shabeelkiisa yar waxa uu arkayaa duni soo jiidasho leh dadka ku noolna dunidaani waxay ilaashanayaan xayawaanadooda halka bini'aadamka kaliya uusan ku nooleen dunidaani ee waxaa jiray saaxirin kale oo halkaani ku nool qof kasta oo bini'aadam ahna naftiisa waxay ku jirtaa xayawaanka saaxiibkiisa uu isagala joogo dhanka kale shimbiraha waxay ayeen saaxiibada saaxirinta haddii ay rabaan waa ay la duuli jireen dadka waagaasi waxay aadi jireen kiniisadaha awdaadtii kiniisadda ayaa ah mid aad u adag waxayna dadkaasi sameeyeen golden compass kaas oo ah ciwaanka filimka waxayna hagaajiyeen dhowr calaamadood halkaasi oo sidoo kale calaamadaha qaar la siiyey dadka caadiga ah waxayna ogaan karaan wixii dhacaya mustaqbalka inkastoo dunidaasi kombiyuutarada laga baabiiyey hadda sheekada waxay u soo gudubtay waqti xaadirkan waxaan aragnaa gabar yar taasoo lagu magacaabo Layra waxayna gabadhan leedahay wehel xayawaan ah wax una wehelkeeda xayawaanka u ekaa dabagaale Layra waxay ahayd agoon taas oo soo koriyay adeerkeeda waxa uu ahaa caalim caan ah waxa uuna ku yiri Layra adeerkeeda waxaan rabaa inaan wax ogaado oo wax u baahan yahay inuu cilmi baaris sameeyo balse waxaa jiray caruur badan oo ku majaajilooda Layra laakiin Layra wiligooda kama aysan cabsanin iyaga laakiin waxay isku dayi jirtay in iyaga cabsi geliso waxayna u sheegaysaa caruurtii in iyada caayda ka dhaafaan waxayna u sheegtay inay jirto jaakad awood leh caruurtiin waxay ku yiraahdeen hagaag waayay cadeen tusi Layra waa ay soo baxday iyadii wiil yar waxayna soo gashay gudaha kiniisadda si ay markaas u soo raadayso jaakadaasi balse markii ay gudaha soo galeen waxay dareentay inuu qof soo socdo isla markiiba waxay ku dhuumanaysaa armaajo halkaasi taallay waxaana halkaasi joogay madaxa kiniisadda iyo wakiilka wadaadada labadoodaba waxay bilaabeen inay midka kale ka sheekaystaan wax ku saabsan Layra adeerkeeda waxaana sheekadooda ka mid tahay inaysan doonaynin in Layra adeerkeeda uusan tegin meesha isaga doonayo inuu sahmiyo waxayna qorsheynayaan inay sameeyaan Layra adeerkeeda iyagoo markaasi cabitaanka sun ugu daraya waxayna doonayaan inay gebi ahaanba dilaan adeerkii Layra waxayna Layra maqlaysaa dhammaan wada sheekaysiga madaxa kiniisadda iyo wadaadkiisa iyagoo markaasi ku fikiraya inay dilaan Layra adeerkeeda balse maxay sidaan u sameynayaan sababta u sameeyaan ayaa Layra adeerkeeda ayaa sidoo kale gacan ka geystay kombiyuutaradii dahabiga ee waqtigii hore kuwaas oo lagu howlgali jiray kombiyuutaradii ugu dambeeyay waxaa sahmiyey oo soo helay Layra adeerkeeda ma jecel inaan filimka ka dhax galo balse haddii aad weli iska daawanayso oo aad noo laagare soo muuqaalkeen u gaaro saaxiibo qurux badan sida adiga oo kale haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir laakiin inta aysan halkaasi ka bixin waxay sameeyeen cabitaankii kadib markii ay sameeyeen cabitaankii waxaa yimid Layra adeerkeeda waa uuna fariistay wax uuna shubtay cabitaankii balse isagoo cabbi raba waxaa soo baxday Layra idoo markaasi ka daadasay cabitaankii idoo markaasi koobkii jibisay waxaan adeerkii u sheegaysaa wax walba idoo markaas u sheegaysa inuu cabitaanka sun leeyahay laakiin way awoodi wayso inay u sheegto cid sameysay cabitaanka Layra adeerkeeda waa uu iska dhitray arrinkaasi wax uuna bilaabay inuu dadku u sheekeeyo cilmi baaristiisa wax uuna leeyahay waxaan raadi in badan anigoo markaas ugu dambeynta ku guuleystay inaan la xiriiro kombiyuutarada dahabiga ah dadkii kiniisadda mid ka mid ah waxa uu ahaa wadaadkii waxa uu leeyahay wax aanan waxba taraynin ayaa doonaysa inaad ka dhigto wax faa'iido leh maxaa yeelay wadaadkaani ma doonayo in la helo kombiyuutarada balse Layra adeerkeeda waxa uu aaminsan yahay haddii kombiyuutaradaasi dahabiga la helo inay dadka cabsida ka bixi doonaan oo ay ku dhiirin doonaan wax kasta waxa uuna Layra adeerkeeda leeyahay waxa markaan aadi doonaa duli kale si aan markaan u soo helo kombiyuutaradaasi dahabiga ah markaan waan aragnaa Layra adeerkeeda iyo iyada waxaana canaanay adeerkeeda waxaana markaas ku dhahayay gabadheeda haddii ay dadka ku qiyaamaan waana diru dhaqantaa si caadi ah maxaa yeelay ani waan dareemi karaa wax kasta iyo cid iga soo horjeeda wax uuna hadafkeyga yahay inaan markaana sii wado cilmi baaristeyda markaas ay ugu jawaabtay gabadhiisa adeer waxaan jeclaan lahaa inaan ku raaco markaas adeerkeeda ayaa ugu jawaabay midaasi ma aha mid macquul ah maxaa yeelay waxaa halkaasi ka jiray khataro fara badan mana doonayo inaan naftaada halaago sheeko dheer kadib markaana waxaan aragnaa kiniisadii oo ay ka socota xalfad aad u weyn waxaana halkaasi soo booqanaysa gabar qurux badan waxayna la kulmaysaa dhammaan caruurta waxayna sidoo kale la xiriirtaa Layra intaas kadib waxay ka helaysaa Layra iyadoo markaasi ku tiri waxaan ka helay gabadhani Layra ee mii raaci doonta London markaas Layra ayaa naagtii ku tiri waa maxay sababta aan ku raacayo laakiin naagtii waxay ku leedahay waxaan ku ballan qaadayaa inaan ku geyn doono adduun kale dhabaantii waxay ahayd isla meeshii uu aaday adeerkii Layra iyadoo markaas ay baahideeda ahayd inay raacdo adeerkeeda aad ayay ugu faraxsantahay arrinkaani dhan kale waxaan aragnaa laba ka mid ah caruurtii oo agoon ah mid ka mid ah waxa uu ahaa Layra saaxiibkeeda waxaa la ceejinaya xayawaankiisa isagoo markaas galaya halis badan markaana waatan Layra iyadoo markaas isku diyaarinaysa bixitaankeeda balse waxaa meeshaas ugu yimid madaxa kiniisadda
isagoo markaas u dhiibay boorso dahab ah waxa uuna ku yidhi haddii aad adduun kala aadayso waa inaad sii qaadataa hadiyaddaani maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaad dib u soo laaban wayso waxayna ka gudoontay hadiyaddii iyadoo markaasi furaysa isla markiiba waa ay baxday iyadoo markaasi gashay safarkeeda waxaana markaasi waday naagtii soo booqanaysay waxayna markaana geysay duni kale oo aad u qurux badan waxayna gabadhii Leera ahayd la yaabaysaa dunidaani qurxoon oo la keenay laakiin dunidan ay joogaan ma aysan ahayn duni kale ee waa dunidii ay horey u joogtay markaana waatana Leera iyadii xayawaankeeda waxayna fiirinaysaa wixii la soo siiyey inkastoo saacaddaani ay saadaalinayso waxyaabo badan intaas kadib waxaa dhowr su'aalood weydiinaysa naagtii iyadoo markaas weydiinaysa waxyaabo badan laakiin gabadhii Leera ahayd uguma jawaabaysa su'aalo badan intaas kadib naagtii waa ay xanaaqaysaa iyadoo markaas xayawaankeedii ku daraysa xayawaankeeda waxa uuna bilaabay xayawaankii inuu dilo xayawaankii Leera waxayna markaana gacanta qabanaysaa Leera markaana waxay dareemaysaa murugo fara badan maxaa yeelay xayawaankeedii ayaa waxaa loo jiidiyaa si arxan darro ah intaas kadib gabadhii Leera ahayd waxaa la soo geliyey qol waxayna markaan halkaasi ka helaysaa joornaal iyadoo markaasi bilaabaysa inay akhrisato laakiin intii ay meeshaasi joogeen Leera waxa uu imaanaya Galeer isagoo markaasi saacadii dahabka ahayd ka dafaya xayawaankii naagtii gabadhii Leera ahayd waxay la fakaraysaa xayawaankii iyadoo markaasi cararaysa laakiin gabadhii Leera ahayd sidii u soo cararaysay waxaa markaani gacanta ku dhigay naag kale iyadoo markaasi shabaq ku riday waxayna naagtii u muujinaysaa naxariis iyadoo markaas habsiinaysa waxayna markaan u sheegaysaa inay markaani geyn doonto duni kale waana halkii uu adeerkeeda baaritaanka u soo aaday intaas kadib waa ay soo baxeen iyagoo markaasi soo raacay markab waxaana markabkaasi dhexdiisa ku jiray dadyo fara badan waxayna markaana Leera dadkii tusaysaa saacadii dahabka ahayd iyadoo markaas u sheegaysa saacaddaani waxa ay tahay dhammaantooda waa ay yaabeen kadib markii ay Leera u sheegtay wax saacaddaani ku saabsan Leera markaana waxay bilaabaysaa inay u sharaxdo saacaddii dabadna waxay dadkii u sheegaysaa in iyada markaana doonayso inay soo badbaadiso caruur la afduubtay dhanka kale naagtii ay ka soo cararaysay waxay u soo diraysaa qalab sida ticsigii oo kale ah kaasoo iyada basaas u ah waxuuna qalabkii soo gaaraya Leera isagoo markaasi dhulka ku soo ridaya xayawaankii Leera laakiin Leera waxay qabanaysaa mid ka mid ah ticsidii basaaska ahaa halka uu ka fakaraya kii kale markaana waatana iyadoo markaasi jawi qurxoon ku qaadanaysa doontii markaana waxay soo xasuusanaysaa carruurtii yaryareed kuwaasoo ay hal meel ku wada noolaayeen waxayna waqti xaadirkaasi cunayeen casho halka ay soo xasuusanaysa naagtii iyada ay ka soo baxsanaysay waxayna halkaasi ku arkaysaa nin isagana ku sugnaa markabka wax uuna ku leeyahay adiga waxaad soo heli kartaa halka uu yaalo kombiyuutarka dahabka ah maxaa yeelay adiga waxaad tahay hogaamiyar taasoo dadka ku hogaamin karta sida ay ku heli lahaayeen kombiyuutarka dahabka ah intaas kadib gabadhii Leera ahayd waxay arkaysaa xayawaan kaasoo weliba u sheegaya wax walba iyo halka ay joogaan waxayna la yaabaysaa xayawaankan sida loo carbiyey iyo qaabka iyada ula hadlaayo intaas kadib waxay dhaqaajinaysaa saacaddeeda dahabka iyadoo markaasi dalbanaysa xayawaanka ay doonayso waxaan u soo baxaya xayawaan weyn kaasoo weliba aanan garanaynin wax aan ku tilmaamo waxaan u yimid xayawaankii iyadoo markaasi aad u naxday waxayna bilowday inay xayawaankii la sheekaysato intaas kadib waxay soo raacday xayawaankii iyadoo markaasi safar la soo gashay intii ay soo socdeen iyadii xayawaankii waxay halkaasi ku galeen digaal iyadoo markaas ay soo weerareen qolo kale waxayna weli sii wada inay sii safarto halka ugu dambeyntii ay u timid carruurtii ay raadinaysay waxayna markaani soo xasuusanaysaa naagtii soo dhaweynaysay taasoo weliba ka celinaysay naagtii kale waxayna markaan u mahadcelinaysaa naagtii laakiin waxaa halkaasi ku soo weeraraya qolo kale iyagoo markaas halkaasi ka soo wadanaya waxayna markaani keenayaan goob kale inkastoo iyada iyo xayawaanadii ay la galeen digaal badan markaana waatana iyadoo markaasi geesaha ay ka jiraan xayawaano tiro badan kuwaasoo iyada dufaacaya waxayna markaan ugu dambeynta u yimid xayawaanadii boqorkooda waxayna bilaabeen inay iyada iyo xayawaanadii boqorkooda sheekaystaan boqorkaana xayawaanada waxaa lagu magacaabi jiray Orso waxuuna ku leeyahay boqorkii Orso waxaan u malaynayaa inaad soo martay dhibaato aad u daran inkastoo aad soo martay waddo dheer hadda kadib waxaan diyaar u ah inaan wehelkaaga noqdo laakiin waxaa jiray xayawaano qaal oo ku noolaa boqortooyada Orso kuwaasoo ka soo horjeeday Leera intaas kadib waa ay soo baxeen iyagoo markaasi yimaaday meel barfley ah waxayna markaan ugu dambeyntii la sheekaysanaysaa Leera xayawaankii iyadoo markaas u sheegaysaa inay ugu mahadcelinayso soo dhoweyntii uu sameeyey waxayna habsiinaysaa xayawaankii intaas kadib xayawaanadii mucaaradka ku haya boqorkii Orso waxay bilaabeen inay dagaalamaan inkastoo boqorkii Orso uu ahaa mid aad u awood badan isagoo markaas ugu dambeyntii ka guuleystay xayawaankii wax uuna markaasi soo qaadaya gabadhii isagoo markaasi la soo cararaya inkastoo meesha ay joogaan ay ahayd meel aad u baraf badan markaana boqorkii Orso wax uu galayaa khatar badan wax uuna markaani sii deynayaa gabadhii isagoo markaasi ku dhahaya
waanaad kaligaaga socotaa maxaa yeelay aniga waxaan ahay mid culus waa ayna soo baxaysaa iyadoo markaasi soo taataagsanaysa waxaana markaani soo dudumaya barafkii iyadoo markaas aad u cabsanaysa waxayna markaana dareemaysaa inay kusoo wajahan tahay khatar badan inkastoo gabadhii Leyla ahayd ay kasoo badbaadiyay barafkii waxayna u soo baxday bannaanka waxayna arkaysaa leer ka muuqda meel dheer waxayna soo gaaraysaa halkaasi waxaan halkaasi ugu soo dhaweeyay nin wax uuna ninkii soo gelinaya halkaasi isagoo markaas u keenaya caruur fara badan waxayna markaana la kulmaysaa caruurtii wayna fariisinaysaa iyadoo markaas la sheekaysanaysa mid ka mid ah markaana waxay ogaanaysaa inay qabaan oo tahay naagtii ay kasoo baxsanaysay markaana waxay ogaanaysaa inay kusoo laabatay xiradii naagtii ay ka baxsanaysay markaana naagtii waxay u soo diraysaa askarteeda waxaana gabadhii qabanaya askartii iyagoo markaasi ku xirxiraya shabaq waxayna ku xireen halkaasi iyadoo markaasi qaylinaysa markaana naagtii waxay kasoo bixinaysaa shabaqii iyadoo markaasi keenaysa guriga markii ay soo kacday Leyla waxay ogaanaysaa in naagtii ay dul joogto aadayna u naxaysaa iyadoo markaas la yaaban waxa naagtani daba dhigay waxayna naagtii ku leedahay isdaji aniga ma wato wax dhibaato ah ee waxaana ka rabaa saacadda kombiyuutarka oo kaliya intaas kadib Leyla waxay dareemaysaa xogaa deganaansho ah waxayna markaas u dhiibaysaa kombiyuutarkii dahabiga ahaa waxayna furaysaa kombiyuutarkii dahabiga ah inkastoo uusan ahayn kombiyuutarka dahabiga ah markaasna waxay u maleegaysaa khiyaano iyadoo markaasi ka soo cararaysa waxayna markaan ogaanaysaa goobta ay ku jiraan inay markaan ku dhowdahay inay qaraxdo waxayna taabanaysaa badhan iyadoo markaasi ku celinaysa sidii uu jawiga horey u ahaa waxaana halkaasi ka kacaya qarax markaan iyadii caruurtii waa ay soo baxayaan iyagoo markaas u soo baxaya bannaankii barafleyda ahayd waxaana markaan hortooda soo dhoobtay askartii naagtii iyagoo markaasi doonaya inay baabiyaan caruurtaani waxayna markaana ku soo dalbanayaan xayawaanadooda balse waxa iyada garab taagnaa xayawaankii Orso isagoo markaasi ka celinaya dhammaan dadkii waxaana halkaasi ka bilaabanaya dagaal aad u ballaaran waxayna bilaabayaan inay dagaalamaan boqortooyadii xayawaanadii Orso iyagoo markaas la dagaalamaya ciidamadii naagtii qaacinta ahayd intii uu dagaalkii socday waxa ay gacanta soo qabanaysaa wiilkii iyadoo markaasi soo wadaysa markaana waxaan aragnaa naagtii iyada soo badbaadinaysay waxayna markaana la joogtaa boqorkeeda iyadoo markaasi u sheekaynaysa intaas kadib waatana Leyla iyada iyo wiilkii yaraa waxayna markaani ka soo badbaadeen halistii badneed iyagoo markaasi wata kombiyuutarkii dahabka ahaa waxaana halkaasi ku dhammaaday filimkii waxaana lagu magacaabaa filimkani The Golden Compass isagoo markaasi soo baxay sanadii 2007 maanta muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay intaan muuqaalkani mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino